waxaa dhalatay 1995 ama 1997 ama 1999 ama 2000 wixii ka dambeeyay. hooyo iyo aabba ayaa kugu soo tabcay, kugu soo daalay, waqtigoodii kuu soo huray, dhibtaada u soo adkaystay, ku soo dhaafiyay marxalad aanad ahayn qof lugihiisa ku istaagi kara. marxalad waxay ku soo dhaafiyeen hooyo iyo aabbo aanad lahayn awood, aanad garanayn waxba. waxay u soo halgameen sidii ay adduunkan dhankaaga dari lahaayeen, sidii aad u noqon lahayd qof jir oo adduunkan 7 bilyan ku nool yihiin lagaga aqoonsan lahaa. magac ayay ku siiyeen, tarbiyad iyo tababar ayay ku siiyeen. waxay ugu talagaleen in aad noqoto qof wanaagsan oo garta Rabbiga abuuray, oo garta Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, oo garta waalidkii heerka soo gaarsiiyay, oo adduunkan wax ku soo kordhiya, oo baari u noqda, oo u soo duceeya haddii adduunkan ka tagaan, oo samafal iyo wanaag soo sameeya. halkeed ku sugan tahay waqtigan? xaaladaadu waa noocee? waxaad tahay 20 jir ama 22 jir ama 23 jir ama 25 jir ama kasii badanba. maxaad qabatay? naftaada maxaad u qabatay? noloshaada maxaad u qabatay? waalidkii ku dhalay maxaad u qabatay? ciyaar, kubad ay iska daawanaysaa adoon naftaada iyo noloshaada mas'uuliyadooda ka dulqaadin waalidka, waliba aad tahay da'dii nolosha ugu wanaagsaneyd. filin ayaad iska daawanaysaa adoon xasuusan inay waalidiintaadu ku sugayaan, mustaqbalkaaga ku sugayo, naftaadu ku sugayso, oo aakhiro ku sugayso, oo nolol dheer ku sugayso. dameerkaaga miyuu lumay? way kugu xiiqeen waalidkaagu, way kugu daaleen. adoo 20 ama 25 jir ah ba ilmo yar baa tahay. halkaad waalidkaaga uga soo shaqayn lahayd, eed u adeegi lahayd, eed baarin u noqon lahayd, ay iyagu furaashka kaa kicin kari laayihiin sidii ilmo carruura. miyaanad inkaar iyo karaahiyo urursan markaa? intaad habeen oo dhan soo jeedo, haddana aad culays iyo jiif la soo doonanayso. hooyadii 9 bilood caloosha kugu siday ee 2 sano dhabteeda aad ku saxaroonaysay, aad ku kaajaysay, iyo aabihii si aad u noolaato qayrkii kugu xamaal tagay oo maalinka dhan dartaa dhib walba u soo marayay. miyaad ilowday waxaasoo dhan? qalbi wax dareema miyaanad lahayn? dameerku damqada miyaanad lahayn? maskax fikirta miyaanad lahayn? miyaad iska nooshahay uun? waxaad go'aansatay inaad noloshaada gidaarka ku dhamaysato sidaad u taagan tahay, waana kugu bariyo, gabalna kugu dhaco. dhalinyar baa tahay, waqti iyo cimri ayaa kugu socda, waana lagu weydiin doonaa maalinka aakhiro waxa aad ku bixisay waqtigaagii iyo cimrigaagii. haddii aanad noloshaada iyo naftaada waxba u qaban karin, kaliya waalidka baari noqo. haddii intaa aanad samayn karinna, kaliya culayska iyo dhibaatada kala fogo waalidka. ha ku ciriirin nolosha, ama ha kaa fogaadaan, ama ha ku ag joogaan, ama aad la noolaatid, ama haba ka tageen adduunkan oo ha dhinteen. waa inaad baari u noqoto, waa inaad hadal wanaagsan tidhaa, waa inaad u ducaysa mar walba, waa inaad Rabbigii subxaanahu wa tacaala ku abuuray aad naxariis iyo janno uga barida mar walba, oo aad baari u noqoto, ood akhlaaq wanaagsan iyo hadal wanaagsan kula dhaqanto, ood mar walba u mahad celiso. naftaada iyo noloshaada inaad wax u qabato, ood adduunkan heer ka gaadho, oo magac aad yeelato, aakhirana qof guulaysta noqoto. ayay in badan u soo dadaaleen waalidkaagu, oo iskuul ay ku geeyeen, oo madrasad ay ku geeyeen, oo jaamacad ay ku geeyeen, oo waxbarasho nooc walba ay ku siiyeen, si aad u noqoto qof dhammaystiran oo lugihiisa ku istaaga. waxaasoo dhan miyaad ka dhigaysaa hal bacaad lagu lisay? haddii aanad intee helin oo ayna nolosha suurtagelin iyo duruufuhuna, kaliya waalidka waxaad u qaban karto u qabo, naftaadana waxaad u qaban karto u qabo. balse laakiin ha noqon qof naftiisii lumiyey, waalidkiina cidle kaga tegay oo karaahiyo